ceelkii ugu cabsida badnaa dunida, sidoo kalena ceelkii ugu khatarta badnaa ama loo yaqaan ceelkii jinka. Dalka Yemen waxaa ka jira god lagu magacaabo godka jinka, iyadoo laga qoray sheekooyin fara badan oo kurutukutaan ah oo muddaba socday, waxaana jira in haatan gunta loo dhaadhacay. Waana sheekada la rumaysan laayay kadib markii koox ka timid dalka Bahrain oo guduudka xoleesha ay gudaha u galeen ceelkan muddada dheer laga cabsida qabay, kadibna ay gunta ugu dhaadhaceen. Waxay halkaa ugu tageen waxyaabo la rumaysan waayay oo ay ka mid yihiin dahab iyo luul, iyo sidoo kale xawayaano dhintay oo ku jira gunta hoose ee ceelka. Ceelkan ayaa waxa uu dheereeran yahay. Dhererka ceelkan ayaa waxa uu leeyahay 102 mitir. Waa markii ugu horeysay ee sawirro laga soo qaado, waxaana jirtay isku dayo waaweyn oo laga qoray ceelkan, kuwaas oo dhammaantoodba ku soo dhammaaday guuldarro. Waana goob lama degaan ah ceelka lagu magacaabo Barhoud ee ku yaala dalka Yemen. Sheekooyinkiisa waxay ahaayeen kuwo adduunka ruxay, aadkana looga cabsan jiray ceelkan. Kooxdan goodka xulasho ee ka soo jeeda dalka Bahrain ayaa haatan soo qabtay sawirro iyo muuqaallo cajiib ah oo adduunka oo dhan ku faafay isla daqiiqadiiba kadib markii gunta hoose ee ceelka lagu dhaadhacay. Waa qiso cajiib ah. Dhegayso ama la soco qaybta dambe si aan ugu wada faahfaahino kutirokutaantii hore iyo dhammaan waxyaabaha halkan ka jira iyo muuqaalada dhabta ah ee laga soo qaaday gudaha hoose ee ceelka cabsida iyo jinka lagu yeeri jiray.